يا دبركا أياك حنونية way ku dileen ilaahay ku caafiyo wax kuwa waxyeelada ku geystay waan soo qabanayna waxna waan ka qabanayna la deyn maayo wixii baxnaanina iyo dawladana waad helaysaa insha Allah in waxa maanta soo booqday oo noogu yimid xarunta maanka duqa degmada magaalada Boorama Maxamed Sheekh Ibrahim waan uga mahad celinaa inuu noo yimiday isagoo markaa u kuurgalayay inuu arko gabadh maskaxda ka jiran oo nolol keenay gabadhaasoo warkeegu lagu baahiyay social media iyadoo laga sheegay xanuun ayna qabin dabcan gabadhaas markii naloo keenay saaka waxaanu si degdeg ah u galnay baaritaankeegii kadib baaritaan dhammaystiran iyo qiimeyn caafimaad lagu sameeyay waxa gabadhaasi la ogaaday inay kaliya ka jiran tahay maskaxda ayna qabin waxa lagu sheegay ee wareegay social media ama la xiriira xanuunadaasi la wareejinayo يعني aaladaasi social media marka gudoomiye waxaan anagu tiimahan mentalka noo cadaatay in gabadhaasi ay qabto kaliya xanuun dhanka maskaxda waxa halka lagu soo xariirin waxa weeyaan badbaadadeeda markii ay ka nabad heli weyday dadkii eriyanayay ee uu sameeyay marka dawlad ku roon yahay dacaayada ama xanuunada aan jirin ee lagu tilmaamay inay qabto marka gudoomiye soo dhawow falka la sameeyay maaha mid ka turjumaya dhaqankii iyo akhlaaqiyadkii lagu yaqaanay dadka gobolka awdal degan waxaan hay'adaha ay khusayso arrinkani amniga ka codsan lahaa maan kula talin lahaa falka inaan sidaa laga harin ciddii geysatay gacanta lagu soo dhigo su'aalo fara badan halka laga weydiiyo sida wax u dhacay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shaqaalaha waxa weeyaan dhakhtarka waxa weey dadka maskaxda ka jiran Boorama waxaan aad ugu mahad celinayaa xaaladda gabadha xanuunsanaysa ee tabaalaysan ee sida xun ee taadiga ah gacanta ugu dhacday waxaan aad uga xumahay in dhaqanada noocaas aynan ahayn dhaqanadii wanaagsanaa ee dadka goobta ay reer Boorama lagu yaqaanay waa fal anshaxii dadkeena lagu yaqaanay ka duwan in qof bini aadan ah oo dib qaba oo dacaayada kale loo tuuro deetana sida maska dhagax loola dhaco aad baan uga xumahay gabadha markaan arinteeda ogaanay waanu ka howlgalnay halkana la keenay meel fiican bay joogtaa qol bay lagu hayaa dhaqaatiirtu way xaaladeeda wala tacaalayaan dawooyin baa la siiyay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa intay xaaladeeda caafimaad maskaxdu daweysmayso inaan gacanta ku hayno aniguna xabalan qaadayaa waxa la wixii taakula ay u baahan tahay ee dhakhtarku nooga baahan yahay inaan bixinayno waxaan halkan fariin uga faa'iideysanaa u dirayaa wanaad bulshada reer Boorama walaalayaal inagu waxaan nahay dad muslima qofka muslimkaana waxa loo sheegay inuu xaq siiyo bini'aadanka iska daay xayawaanka waati nabiga cali sallallahu alayhi wasallam xadiisyo badan kaga sheekeeyay gabadha ku gashay cadaabta xayawaan ay ma garanaysaa ay u naxariisan weyday ku kalena ku galay jannada xayawaan kale oo u naxariistay bini aadan badee way ka duwan tahay xaalkiisa marka dhaqankaasi keeni maaha waliba in si hadana fool xun inta loo duubo social media lagu baahiyana wax inaga naga turjuma maaha bulshada kale ee meel kasta naga ka daawatayna waan ka raali gelinayaa dhaqankaasna ma lihin dadkii falalka ku jirayna talaaba laga qaadi doonaa anshax marina insha Allah taala waana nimad celinayaa bahda caafimaadka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.